Assalaamu calaykum dhammaantiin saaxiibada sharafta badan. Muuqaalkan waxaan kuugu soo koobi doonaa filimka yaabin doona aadna ka heli doonto dabcan. Filimku wuxuu ka bilaabanayaa bangiga St. Petersburg. Sida caadada ah bangiga waxaa ka buuxa dad shacab ah. Qof kasta oo halkaas jooga wuxuu samaynayaa shaqo la xiriira xisaabaadkooda. Si lama filaan ah 3 nin oo isku soo ekeysiyay ciyaartoyda hockeyga oo xiran maskarada sawir gacmeedka caanka ah ee Soviyetka backpack ayaa soo galaya bangiga iyagoo qoryo gacmaha ku haysta. Isla markii ay soo galeen bangiga ayay tuugadu rasaas ku fureen bangiga. Isla markiiba waxaa dhacay jawi isku dhexyaac ah. Waxay ku amreen shaqaalaha bangiga inay boorsooyinkooda ka buuxiyaan lacag cadaan ah. Qaar ka mid ah tuugadaas ayaa meelo kala duwan dhigay boosaskooda. Mid ka mid ah ayaa u qaylinaya maamulaha oo xitaa aadaya qolkiisa. Markii la waayay maareeyaha bangiga ninku wuxuu soo qabsaday gabar joogta bangiga oo uu ku fiiqay qori oo u sheegay maareeyaha haddii uu soo bixi waayo inuu gabadha toogan doono. Kadibna nin ayaa ka soo hormuuqday isagoo labadiisa gacmood kor u taagaya. Tuugii ayaa u yimid ninkii oo fiiray wuxuuna ka dalbaday furaha qasnada. Tuugii markii uu furaha qaatay ayuu ninkii ku qasbay inuu u kaxeeyo qasnada. Intii ay qasnada u sii socdeen ayuu tuugii si lama filaan ah qorigiisii hoos ugu dhigay wuxuuna ka codsaday maareeyaha inuu cafiyo. waayo arrintan iyaga nafsadooda uma samaynayaan laakiin carruurta saboolka ah dartood. Waxa uu sheegay in lacagtaas oo dhan ay ugu deeqayaan xarumaha agoomaha iyo isbitaalada. Maareeyuhu wuu yara fikiray wuxuuna weydiiyey inuu run sheegayo iyo in kale. Tuugii intuu qoslay ayuu yiri doqon kaalay hore u soco oo qasnada fur. Dabadeed mar alla markii albaabka qasnada la furay tuugu wuxuu maareeyaha u kaxaynayaa gudaha laakiin meeshaas tuugii lacag kuma arkin wuuna carooday. Dabadeed tuugii wuxuu arkay albaab kale labadooduba waxay u dhaqaaqeen dhinacaas. Isla markii albaabka la furay ayuu tuugii arkay qol ay ka buuxaan lacag cadaan ah. Tuugii ayaa si farxad leh u bilaabay inuu lacagta ku ururiyo gaariga adeega. Wuxuu ugu farxayaa sidii isagoo jano la geeyay qoobka ciyaar ku raaxaysanaya inta uu bangiga dhacayo. Marka uu ku qasbo maareeyaha inuu caawiyo tuugu wuxuu arkayaa aqoonsiga bangiga oo wuxuu ogaaday inuusan ahayn maamulaha bangiga. Wuxuu markaas ogaaday inuu ka mid yahay booliiska St. Petersburg Major Igor Grom. intaas kadib filimku wuxuu dib inoogu celinayaa markii ay tuugadu soo galayeen bangiga isla mar ahaantaana kormeeraha Grom uu lacag kala baxayo ATM-ka. Grom ayaa ku dhuumanaya ATM-ka gadaashiisa marka uu arkay tuugadaas. Inta uu dhuumanayo Grom waxa uu qiyaasayaa dhowr isku day oo uu kula dagaalamayo tuugada laakiin waa lagu dhex qabtaa male awaalkiisa markasta. Isku daygii ugu dambeeyay ee uu maleegay waa uu ku guuleystay laakiin waxa uu u maleeyay inay tuugadu waxyeelayn doonaan shacabka. Dabadeed si lama filaan ah ayuu u arkay maareeyaha bangiga oo agtiisa jilba joogsanaya si uu uga dhunto tuugada. Asagoon wado kale haysan ayuu tuugii hor imanayaa isagoo u labisan sidii maamulaha bangiga. Mar kale iyo goobtii khasnada halkaas oo uu tuugu ku ogaaday inuu Grom uusan ahayn maamulaha bangiga. Isla markaa Grom wuxuu ku dhuftay tuuga halfeed. Markii uu Grom halkaas ka tagi rabo ayaa waxaa qolkii waardiyaha ka soo baxaya waardiyaha bangiga oo weydiinaya yaa tahay maxaad halkan ka qabanaysaa. Grom wuxuu tusay kaarkiisa aqoonsiga oo wuxuu u sheegay tuugada. Wuxuu u soo jeediyey inuu ku laabto suuliga oo uu halkaa ku dhunto. Muddo kadib markii tuugii ugu horeeyay uu la soo noqon waayo lacagtii, hogaamiyihii tuugada ayaa dareemay shaki wuxuuna ku amray saaxiibkii kale inuu soo fiiriyo tuugii ugu horeeyay iyo maareeyaha. Tuugii ayaa u dhaqaaqay dhanka qolka khasnada oo wuxuu arkay tuugii oo ku hurda lacagta qolka khasnada. Wuxuuna u sheegay inay daaheen oo inta ay goorigoor tahay kaalay aan dhaqaaqno. Dhanka kale tuugii banaanka joogay ayaa aad u carooday oo waxa uu bilaabay inuu toogto daashka bangiga. Si lama filaan ah waxaan aragnaa gaariga dukaamaysiga oo iskiis u soo socda kaas oo ay labadii tuug bajiifaan iyagoo miyir daboolan. Kadibna Grom sidoo kale wuu soo baxayaa. Tuugii markuu arkay asxaabtiisa oo miyir daboolan wuxuu bilaabay inuu si aan kala sooc lahayn rasaas ugu furo Grom. Grom wuxuu ku dhuumanayaa ATM-ka gadaashiisa isagoo iska ilaalinaya rasaasta. Isla markay tuugu rasaastu ka dhamaato ayuu la cararayaa boorso ay ka buuxdo lacag cadaan ah. Kadib waxaan aragnaa Grom oo soo galay hoolka oo ka codsaday walaalka mataanaha ah ee ilaalada bangiga inuu isha ku hayo tuugada miyirbeelka ah oo uu ka soo baxaya halkaas. Tuugii hoolka ka soo cararay ayaa soo baxay oo gaari fuulay. gaarigaas waxaa lahaa tuugadaas waxaana sugayay mid ka mid ah saaxiibadooda. Waxay isku dayeen inay cararaan halka Gromna uu daba socday iyaga. gaariga tuugada ayaa ku dhacay gaari xamuul ah xilli ay baxsanayeen. mid ka mid ah dadkii watay ayaa dhaawac soo gaaray oo halkaas ku haray. Tuugii kalena waa uu ka degay gaariga oo bilaabay inuu ordo balse Grom ayaa daba ciirsaday isaga. Dabadeed tuugu wuxuu galay dhisme, Grom sidoo kale waxa uu ka daba galay isla dhismihii. Grom ayaa dhabarka kaga dhuftay feer oo garaacay. Hadda waxaa bilowday dagaal dhex maraya iyaga.
labaduba midba midka kale wuu ku culus yahay. Si uunbuu tuugii u garaacay Grom oo isku dayay inuu baxsado isagoo koray dabaqa sare ee dhismaha, laakiin Grom kama joojin cayrsiga isaga. Grom wuxuu isku dayay inuu fuulo dhismaha laakiin wuxuu ku dambeeyay daldalaad. Tuugu wuxuu isku dayay inuu ka tuuro meesha isagoo ku tuuray xirmooyin lacag ah, laakiin wuu ku guuldaraystay. Mar kale tuugu wuxuu isku dayay inuu baxsado, halka Grom uu eryanayo. Ugu dambeyntii isagoo cararaya Grom wuxuu garaacaya tuugii isagoo feeraya albaabka. Kadib booliiska ayaa yimid bangiga oo ay arkeen xaaladda oo la xakameeyay. Booliisku waxay weydiinayaan dadka rayidka ah ninka la dagaalamay tuugada. Kadib shaqaalaha soo dhaweynta ayaa u sharaxaya muuqaalka Grom. Booliisku isla markiiba waxay garowsadeen inuu yahay Grom midka arrintan sameeyay. Waxaan aragnaa kanaalada wararka ee telefishinada oo tabinaya wararka ku saabsan iskudayga dhicisoobay iyo tuugada oo la xiray, halka dhammaan dadka rayidka ahna aan waxyeelo soo gaarin Grom awgii. Muuqaalka halkan ayuu ku egyahay. Fadlan taawo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.